dagaalamaya marka dadka Soomaaliyeed reer Puntland waxaan insha Allah fursad uga faa'iideysanayna inaan dib u furno xisaabta siyaasadeed iyo sida aan uga shaqeynaa dib u qiimeeyno hanka hadda ka sheekeeyay إسلام عيسى قلت خير الله سيد المرقي يوم كجيري وعاقفت إنه يقع مرتبط ونفتيس وحفظت مركان هيك عام كشقي ما يقدر كان يجلس دنجا يرجع من مجلس وانا هاي دكتور مشاركة كرامة رمضان عرفت يوبط النظام حرقوا كرسوري كبر بارح قبل الآن دليش أرجو من اليرد والله ما الدروغ كان يلا مسؤولية ذات الناس هنكي بالكدني رجلي واسبابيني مستقبل قوي مدقلني قفكون المال وكله حق له بدس كتور وواحد بسمايو وانت واحد اسلاي عقل كفر وسحريه انت قفت مريا منا ادرب المسؤولية ذات الناس والمسؤولين بركود كالنتاس دليرد دليل ما لو بان توسين يئن غاديو او لبدادي arrintaas waxaan rajaynayaa insha Allah in daraar hor lagu dhiso qayb ka wada qayb waxaan rabaa ugu dambeyn inaan halka ka sheego in aan Puntland hadaan nahay taageersanahay dowladda Puntland ay taageersan tahay dowladda Jubbaland kuna taageerayso inay noqoto مسؤولية waxaan aad uga xunahay weerarkii raaskambooni ka dhacay oo dhacay intii labada xalfadhi lagu kala maqnaa runtii arrintaas waxay ahayd xadgudub ah oo dowladnimada ku xun abuureysana waxyaabo laga soo gudbay oo u muuqda dagaalada sokeeye inay dib u noqon karaan waxaan u rajaynayaa dadka gobolada Jubbaland jubbada dhexe xoogeeda niman shabaab haystee jubbada hoose iyo gedo inay si miir qabta dalka mustaqbalkiisa uga tashadaan wixii wanaag ah oo Soomaalidu uga qaadan karaan kaalinta ka qaadaan wixii sharci iyo dastuur aan ahayn xadgudub ah oo dowladnimada aan iska celiyaan arrintaas suuragal maaha in dowladda federaalku ay u adeegsato awoodii dowladnimada ee la siiyey inay deegaanada kala waxyeesho arrintaas waa ku digaynaa faragelinta lagu hayo maamulada aragtida saxda ah ku socda oo oranaysa haddaan la raacsanayn waxa weeye waxa tahay cadowgeeda arrintaas waa arrin khatar ah waa arrintii September 11 oo Bush ku dhawaaqay adduunyada u kala saaraan anaa la jirtaa waa jirta taas wax shaqayn karta ma waxba ma dhalin ilaa iyo hadda argagixisada waa sii xoogaysanaysaa adwaanku waa sii socdaa dadku wuxuu ku dhaamaa walaalo aan wada hadalna ma jirto in meel la isugu yimaado la wada hadlo oo waxa khaldan lagula arko ayaa ah dowga saxda ah Soomaali dad isku awoodsan kara ma Soomaali dad isku joogi kara ma qof Soomaaliya ama deegaan Soomaaliya oo waxa uu doonayo cid kale ay ka bedeli kartaa ma jirto waxa la kaliya dadka deegaanadaas degan dhowr yar oo sufaha ay magacooda qaataan inay meesha doonaan oo kala bixin dadka intiisa badan waxa la rabaa go'aanka maamulka iyo deegaanada ay joogaan inuu noqdo go'aan maamul loo leeyahay hadday tahay dadka dhaqanka hadday tahay waxbaradka kale iyo dadka xilka loo dhiibtay haddii qof walba la yiraahdo lagu dhigo meesha doonto durduri hadda waxa dhacay waxaan munaasab ahayn oo runtii laga mahadin waxaan u rajaynayaa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inuu caqliga taliyo in nabadda laga wada shaqeeyo in shuruucda xeerarka ilaa hadda aan haysan heshiiska lagu yahay lagu dhaqmo wixii tabashada laga qabo la rabo in laga bedelana iyadoo lagu jiro laga wada hadlo oo xasilan yahay Puntland waxay diyaar u noqonaysaa iyadoo cid gaar ah tilkiisha ku wada in aysan fogeynin in nidaamka dowladnimo iyo heshiiska lagu yahay qaybta ay ku leedahay inay qaadato waxaan soo dhaweynayaa runtii cid walba oo arrintaa ka shaqeynaysa waxaan si gaar ah fariin ugu darayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay shacabka Soomaaliyeed ku siiyeen fursad labaad oo dalkan ku hogaamisid waxay ka dhirsugayeen runtii rajo aad u weyn oo Puntland ay ka tahay oo runtii u arkaysay imaanshaha inay noqon doono mid khayr ku ah Soomaaliya mustaqbalkeeda
waxaan rajaynayaa waddada hadda lagu socdo waddo sax ma waxaan rajaynayaa in kastoo wanaagsanaa inaan mimbar nasiixa kaaga soo jeediyo haddana waa ka fursan waaye maxaa yeelay wax badan oo si hoose aan uga hadlay waxba waa ka fursan waaye marka haddaan la ismaqlin waxaa ka dhalanaya waxaan wanaagsanayn waxaan ku hadlayo waa dareenka iyo aragtida shacabka reer Puntland ay qabaan waxaan rajaynayaa aragtidaas oo ah aan wada hadalno oo wanaag aan ka wada shaqayno cidiinaysa inaysan jirin waxaan rajaynayaa xilligii laysmarin haweenin jiray dalkan uu dhaafay shirar aan dhalaysa ama sax ahayn qabashadooda la tirmayso waxaa rabaa shirar sida dawladdu xaaladda marka ku jirto wada tashi u baahna waxaan ra'yiga ka qaadanaya quraankan aan iska waxay u baahan tahay shirar dhab ah oo aad u jiro lagu gaaro oo nin walba kaalin iska laakiin intii qofka loo yeero taladayda waa ku dhageysta keliya adduunka loo sheego waa la tashaday hebel macnaha meesha ka miismaysa marka runtii shirka maanta maqlanaa shan iyo tobanka umalayn ma inuu qabsoomin iyo bacdan waa maqlayay wax markiisa hore si fiican looga baarandegin buu ahaa haddana waxaan ku talinayaa shir loo dhan yahay oo xaqiiqada hadal ah oo dalka lagu sabata bixinayo inuu dhaco suuragal noqon mayso in dadkoodan ay dalka masiirkiisa afduubaan suuragal noqon mayso markaas waxay noqonaysaa cid walba wixii markaa la gudboon iyaduna ay ka tashato waxaan wili furan fursad dadka Soomaaliyeed dalahooda ugu bugan karaan dalkana qalooca looga sixi karo in aad garatid waxa markaas waxa ka raayay duwan oo aad qaadaysid qaatay wanaagna ma keeno bulshada waxay jeceshahay waxa wanaag ku jira waxaan rajaynaynaa insha Allah taala kaalinta Puntland oo ay nimadeeda iyo ilaaliso kaalinta ay Soomaaliya ay qaadato runtii dadkeedana ay u horseedo nolol degan iyo horumar waa waajib aan wadana wada saarno aan rajaynaynaa wada wadano aad baad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh